waxa adiga aadan ogeyn laakiin dad kale og yihiin qaybkaas dadka qaar baa og midkaasoo kale curafiintu waa ogaadaan shayaadiin baa u soo sheegta waxaase ka warqaba marka baadida meeshay jirto iyo waxa xanuunkan muxuu ahaa maalinkuu kugu bilaabay iyo waa laga yaabaa inuu kuu sheego kadib wuxuu u socdaa beri waxaa kuu dhici doona inaad ka aaminto walaad hadda koraan ka sheekeynay saaxira sudaani taaci ayaa mawduucan waa ku shaqaysan jiray laakiin wuxuu yidhi shayaadiin baa noo sheegaysa qofka wuxuu og yahay ama jinniga la socda qariinkaa og yahay kuwaasaa noo warramaya laakiin wuxuusan qariinkaa ogeyn waxba kama ogin buu yidhi dadkaas dhahaya markaa u timaado hebel soo adiga matii soo halkaa kamaada imaanin soo baadidaa kaama maqna waa gaal waaye shayaadiin baa u warramaysa wuxuu leeyahay inuu been sheegay waxaad ku ogaataan sacad caraan qururux soo cantoobi waa meeqandhe markaas soo wuxuu sheegayni cantooba caraan dhagax hadaad soo qaado adiga aadan ogeyn haddaba adiga soo qaado tirisood fiiriso oo qariinkaagu waa ogaado marka waa loo sheegayaa laakiin adigaba adoon ogeyn haddaad soo cantoobiso dhahda meeqa waay mustaxiil inuu sheego لأنه شيطان وحمد الله dadkaas marka curaafiinta ilaahay xarigiisay ka furteen dadkana xaqi ilaahay uu lahaa ay daba marinayaan faqad kafara bima unzila ala Muhammad ayaa u taala qisam mar walba in badan sheegay oo ayadan oday uga sheekeeyay islaam wax sheeg ahay oo baanin soo aaday subax markaasay tiri xalaa waxaa la i tusay adoo dhibkaas kugu dhacayo xirsi xil waxaa kuu ah inaad nuwal noocaasa qasho quraan intaas akhrisato quraan hadda akhrisato waa quraan intaas akhrisato wal noocaasa qasho waxaas bay ku tiri hadda buu yidhi naabadii soo dhow markay soo dhawaatay uu ceega qabtay suu hayay markay nafta ku dhex sii daayay hadhow markay kacday oo naftii ku soo noqotay wuxuu yidhi aniga dhibkii ku dhacay xalay waa lagu tusay adiga inay tan saa kugu dhacayso maxaa lagu tusi waay maxaad iigu soo cararto iga carar weynay marka ma oga ayada wax biri ku dhacaya adiga wax kugu dhacaya ogaan kara wamaa tadri nafsun maada taksibu gadan nafi waxay beri galabsanayso cid og lama qofkii marka aamina qof kala ogaanaya cibaadada ilaahay faray waa ka tegay waxtan cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah keliya ayaa waxa soo socda ka warqaba waxa wax kuu taray waxa ku dhibay ilaahay baa og biraqawda waa fariisan waa masala marka qaa'ima dad badanna ay ku dhumeen magaalo walba meel walbana shayaadiintaas waa joogaan laga yaabo in xitaa taleefanno lagula xiriiro oo lacag loo diro inay adduunyo doon yihiin waa dad ku shaqaysanaya oo shayaadiintaas u adeegaysaya ayaguba dadkan xoolahooda marka qofkii ilaah aaminsan waxaas waa inuu ka dheeraado inuu aadaa gaalnimo ah faqad kafara bima unzila calaa Muhammad waa markuu u rumeeyo ilaah subxaanahu wa tacaala marka xaqiisaas asaga iska leh cid kale loo wadaagta male cibaadada marka waxay isugu jirtaa cibaadaad qalbi ah oo dadkan yaa wax tari kara yaa wax og oo aniga waxa wax ii dhimaya mustaqbalka iyo waxa wax ii taraya saan noqon doono sida aan beri ahaan doono ilaah masaal subxaanahu wa tacaala ilaah marka wuxuu nagu imtixaanay adduunka waana la fasaxay cibaada la idinka rabaa baa la yidhi cibaadadu marka waa maxay waa inaan qalbigeenna iyo afkeenna iyo addimaheennaba ilaah subxaana wa tacaala wuxuu raalli ka yahay keliya aan ku dhaqno addoommo aan noqono waay marka la soo gaabiyana man radiya billaahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قفكاس عبادتي حقيقية الله كلي رب النمو آمن سيئا معنى هذا هو محي إنه أدون يهي أو الله كلي وأدون يهي أيو رامي كل نقضي وكل رقما لقن كيسنا
ودين إسلامك عدو كده يانا ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم معناها دوام محي قلبي جانا عندما موليس وإله سبحانه وتعالى وحن إله ذلك وكإل علينا إنها نيام معمولة إلهي دينتي سام معموشة وحو إله ذلك يمسان كفيرنا وحسن ذلك وكعلنا أفك واسيدو كالي دقه واسيدو كالي noloshaasna la amray inaan u gudanno cibaadana markay dhammaato qabriga kow la galo su-aasha taalla waxay tahay cibaadadii adduunka 3 su'aalood baa loo sii sheegay 3 su'aalood baa noo taalla man rabbuka ma diinuka man nabiyuka inta way noo taalla maalinkaas marka jawaabta la bixinayo jawaab hadda afka laga sheegayo la xafidayo ma aha laakiin dhaqankaaga muxuu ahaa ayaa jawaabtaas ka jawaabaysa oo sida suufka oo kale ama maro la qooyay marka la tuujiyo wixii ku jira ka soo baxay haddii maanta lagu hayo waxaana ku jira oo aysan dhexdeeda ku jirin ma ka soo dhiiqayaan marka qofka la dhaho man rabbuka rabbigaaga kumu aha diintaadu tee ahay nebigaaga kuu ahaa qofkii ilaah ku xirnaa oo addoon ilaahay ahaa hawadiisa addoon u ahayn qofka hawadiisa waxay jeceshahay raaca muslim baanay xitaa hadduu dhaho markuu maalinkaa qabriga tago rabbigay waa allah ma dhihi karo leanna rabbi uma ahayn hawadiisa rabbigu u ahaydo afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa hawadiisuu caabudi jiray qofka hawadiisii caabuday berri ma dhahayo aniga rabbigay waa allah ma dhihi karo diintaadu maxay ahayd marka la dhaho maxaad ku dhaqmi jirtay qofkii iska furnaa oo afkiisa iyo addimihiisa iyo indhihiisa sharciga aan ku dhaqi jirin ma dhihi karo diintayda islaamka ahayd maxay la dhaqankaaga muxuu ahaa qofkii dhaqanka diintiisu ahay diintaydu islaamka ahayd buu dhihi waxaan ku dhaqmi jiray naftayda ku dhaqi jiray reerkayga ku dhaqi jiray ganacsigayga ku dhaqi jiray dadka aan kula dhaqmi jiray indhahayga ku dhaqi jiray afkayga ku hadli jiray sharcigaa i xukumay waa qofkii sharcigu xukumay waay laakiin wallaahi saan ku sugannahay ilaahay unoo naxariista ma ahane afkeenna iyo addimaheena iyo waxaan aaminsanahay waa kala duwan yihiin hadhow marka tawfiiq ma imaanayso haddaanaan maanta isdaba qabanin qofkii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam uu ahaa tusaale uu ku daydo nolosha waxay u baahan tahay cidaad fiirsato ku dayato oo qaabku u noolaa inaad u noolaato ay tahay meeshuu mari jiray qaabku u dhaqmi jiray wuxuu jeclaa wuxuu necbaa inaan qaa'id ka dhiganno marka waxaana la dhihi maalinkaas yaa ku ahaa cidaad fiirsanayso xidig iyo cidaad daba taagan tahay yuu ahaa hadduu nebi moxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi qofkii raacsanaa maalinkaa wuxuu leeyahay nebiyi moxamed sala allahu calayh waali wasalam qofkii ka duwanaa ee aan raacin ee cid kale daba socday maalinkaa ma awoodo marka cibaadada na laga rabo waa middaa nala weydiin doono way anwaacdaasay leedahay qof walba waxaa laga rabaa marka cibaadadaas ayadoo dhaba ah inaan afkani adimaheenna annaga iyo ehelkeennaba nolosha waxaan ugu noolnahayba yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara ilah wuxuu leeya war dadka ilaah rumeeyo naftiinna iyo ehelkiinna waxaad ka ilaalisaa naaran dab ka ilaaliya waquuduha annaasu walxijaara leanna noloshan hadda waa naloo sheegay ma sii jirayso qof sii joogayana ma leh qof walba wuu ka tegayaa waxaa ka horeeya wuxuu hormarsaday ilaah marka wuxuu leeyahay quu anfusakum quu ilaaliya naftiinna iyo ehelkiinnaba naar ka ilaaliya adduunka halka baahi waa iska ilaalinaa cudurro waa iska ilaalinaa xitaa qofku wuxuu u baahan yahay
inuu dhib ka soo gaaro darteed buu isaga daaya qof baa cunto macaan oo uu arko yuu iska daynaya sokor buu qabaa marka macno wuxuu leeyahay sokor baan qabaayo raashinkan wuu dhibaya oo naftiisu ma jeclayso waa jecesha naftu waa rabta يعني إيكر بان قبا عنتظر معوني كرو قاس بان قبا عنتظر وإسكدين يا محا إسكديني هذا هو عن سنة يا قفكي لكن هذا هو إيقاق وأنت هايو ساسو إسكدين يا إله مركة وحوليا نفط وحي جعش هاي أعطان إسكا إلالي بري وحبكم متريسو يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدوك وحوالبا قد سمين إيسان iska fiiriya maalinka qiyaamo cadaab meedin horseedaya naftiina iyo ehelkiina naarka ilaaliya marka anaga kaliya ma mas'uuliyadna saarano qof walba naftiisa inuu badbaadiyo ilaa naar marka la leeyahay waa hog dab ku holcayo adduunka ma la dhex taagnaan karo dabka iska dhaaf dabkeena holcaye xitaa killiga laga soo qaaday gacanta uga dhaweyn karna waa kala cararayna biyaha lagu soo yaro kululaaday jirkeena waa ka dhowraynaa dabka waa iska ilaalinaa adduunka asaga waxba maaha marka dabka aakhira loo fiiriyo ilaah wuxuu leeyahay naftiina waxaad ka ilaalisaan naar waxa lagu murinayo uu yahay dad iyo dhagax dadkii adduunka xaqii ilaahay lahaa cibaadaduu lahaa addoonnimadii laga rabay garab maray naartaasi yaa lagu hurinayaa marka naftiina iyo ehelkiina naarta ka ilaaliya waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun cibaadadaasaa marka naloo abuurtay xilli walba iyo meel walba yacni waxaa la rabaa markaan masaajidka joogno waa is ilaalinaa cibaadada isku ilaalinaa dadku xitaa wax badan ma ku sheekaysan karaan telefoonada laguma fiirsado masaajidka hadalka waa lagala baxaa waxun laguma sheego maxaa yeelay masaajid baa ku jirta ilaahay masaajidkan ku caabudayna suuqan waa inaan ku caabudnaa oo dukaanka dhexdiisa marka qofka uu joogo markuu gaarigiisa wato markuu kareetadiisa wato markuu meel walba taagan yahay siduu masaajidka markuu joogo isu ilaalinayay inuu isu ilaaliyaa la rabaa maxaa yeelay allah aan caabudayno fii kulli makaan buu laga rabaa inaan caabudno nolosheenoo dhan baa laga rabaa inay cibaado noqoto cibaado wada noqon kartaa oo maxaa laga wadaa qofka xitaa asagoo ganacsigiisa jooga ayuu cibaado ka dhigay ilaah inuu ugu dhowaado beecsharadiisa ilaah ugu dhowaado xamaaligiisa uu shaqaysanay ilaah inuu ugu dhowaado maxaa yeelay ilaah subxaanahu wa tacaala inaan shaqaysano looma diidin laakiin niyad wanaagsan inaan ku shaqaysano rabo inaan nafteena waxtar muslimiintana waxtarno xaaraanna iska ilaalinno qofka ilaah wardigiisana uu wado cibaaday u tahay intuu meel walba taagan bal gabadha gurigeeda ka shaqaysanaysa ee ilmaheeda u qubaynaysa ama wax u karinaysa hadday waajibkii saarnaa mas-uuliyaddii ilaah saaray inay gudanaysa ay meesha soo dhigato cibaaday u noqonaysa marka cibaado ka dhig nolosha dhanba cibaado ka dhig ilaah cibaadu noo abuuray ciyaar nooma abuurin cibaadada marka waxa ugu weyn waa niyada inaan niyo gashano cibaadaba naloo abuuray oo xitaa markaan seexanayno cibaadadii baan niyeysanaynaa oo waa ma cibaadaan niyeysanayno annaguna cibaadana loo abuuray cibaadadii waan wadnaa waa u yara nasanaynaa waa u soo kacaynaa haddaan saa ku seexanno maca hurdadii baa cibaadaha laba saxaabi oo nabiga yaman uu diray sallallahu alayhi wa sallam mucaad ibn jabal iyo saxaabiga Abu Musa al-Ash'ari ayaa is waraystay qiyaamul leylka iska waraysteen mucaad ibn jabal baa wuxuu yiri anigu habeenkii marna waa soo kaca waa tukadaa marna waa seexdaa wa inni la ahtasibu min nawmati ma ahtasibu min qawmati hurdadayda an hurdo waxaan ka rabaa
waxaan istaaga salaatuleylka u taaganahay ka rabo ajra ee hurdadana ka rabo hurdadii waa cibaado ah say cibaado u noqotay haddii cibaadaanba ku jiray si aan cibaadadii ugu nasto baan u seexanaya ayay baa cibaado laga dhigaya qofku waa baahan yahay cibaadadu ku jiray nolosha dhan baa cibaado ah inuu marka cibaadadii u xoogayso wax u cunay ajar baa laga siinaya carruurtiisii buu wax siiyey waa cibaado waa biilay waa waajib u gatay waa cibaado mid baa xanuunsan isbitaal buu geeyey waa cibaado guri buu u kireeyey waa cibaado wax walba oo nolosheennaha cibaado ah inaan marka soo xaabilsanno annagu addoommaan nahay amarka ilaahay baan ku soconnaa dharkaan xiranayno qaabkaan u soconayno qaabkaan u fadhiisanayno qaabkaan u hadlayno cibaadaan soo dhiganayna maxayna cibaadada naloo abuurayba wax kale nalooma abuurin marka saa hadday noqoto nolosha qofka oo dhan ayaa cibaado noqonaysa ilaah subxaanahu wa tacaala waa suuratu al-ancaam uu ku leeyahay qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin waxaad ku dhahdaa salaadayda iyo gowracayga cibaadaadkayga iyo noloshayda iyo gerida dhanba ilaah baa iskale heer wuxuu gaari qofka noloshii oo dhanba ay cibaado isu beddesho taaca ilaah subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya uu noqdo caadadiisii baa cibaado noqonaysa waa markuu soo xaabirsado in cibaado loo abuuro oo noloshiisoo dhanba cibaado laga rabo noloshoo dhanba in cibaado laga rabo maxay wax kalena looma abuurinba wax kalena looma abuurin oon cibaado ahayn laakiin qofka ay taa ka maqnaato in cibaado loo abuuray addoon laxdo walba iyo saacad walba iyo meel walba addoon ilaah inuu yahay oo laga rabo inuu ilaah ugu dhowaado wax walba hadday maskaxdeena ka baxdo waxaa dhacaysa in aan nolosheenoo dhanba aysan cibaado noqonin xitaa salaadii ay caado noqoto salaadii xitaa caado noqonaysa cibaaday ka baxaysaa caaday noqonaysaa wax dadku sameeyaan oo salaada iska samaynayso miro ma leh dhadhan ma leh qur-aankii soonkii wixii lala baxay wax caadi bay iska noqonaya waa markaanaan soo xaadirsan niyada ah cibaadaana loo abuurtay mar walba inay cibaado ku taagnaanaa ilaah waxaan ka baranaa subxaanahu wa tacaala inuu nagu daro addoomihiisa uu ka dhigay kuwa hadalkan maqla kiisa wanaagsanna raaca allahuma inaa nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghina اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين